bisad rabaayad u ahayd qoys Soomaaliyeed oo ku nool magaalada tan London ayaa ku dhimatay shil baabuur kadibna ciidamada booliiska ayaa la soo xiriiray qoyska Soomaalida oo u sheegay waxa ku dhacay bisadoodii aadan warsame buryar oo hadda stuudiyaha ila fadhiya ayaa qoyskaasi aaba u ah aadan in waxaan jeclahay marka hore inaan ku weydiiyo sheekadan la yaab kale intaan aaskii bisada iyo wixii dhacay u guda gelin horta booliisku maxay ku yiraahdeen markii ay idin la soo xiriireen farxan waa maadsan tahay qisa cajaa'ib la weeyaan oo markaad nin adduunka joogo maxaa aragtay kugu laaban waxyaabo waxaa jira aadan filaynin inay kaala laga hor yimaadaan adduunyada tan booliisku wayna soo waceen habeenkii axadda ahayd goortii aan seexanay adigu 12 iyo barkii ayaa telefonku qayladiisu mataqaana demi weysay markii hore waan ignore garaynay oo ma aanan qabanin markii horeeto goor dambe markii telefonkii uu istaagi waayay ayaanu qabanay wuxuuna ahaa nin booliisa marka wuxuu nagu yiri reerka magacaas lama tihiin oo bisadaas maxaan ku rahdaa marka hore markuu telefonkan ka qabanay si degan oo qof mataqaana ka walwalsan dareenkaaga oo kaleeto ayuu yiri waxaan ka xumahay inaan akhbaar xun idiin soo gudbiyo reerkaas oo naxdin lahaa reerkaas oo ma tidin haa bisada magacaas la idinku ma lahaydeen haa bisadiina shil baabuur bay gashay isbitaalkaas xoolaha baan nageynay la xiriira wax yar kadib intaan nus saaca kadibna waxaana soo wacay isbitaalka laftigiisii baana soo wacay sidii oo kaleeto iyaguna aad moodid inay dareen maxaan ku idhaahdaa walwal ah muujinayaan oo ay kaaga tacsiyeynayaan waan gartay wax su'aasha markay isweydiinta mudan waxa weeye bisadiini baa shil gashay booliskii iyo isbitaalkii baa la ka soo wacay sidee lagu ogaaday waxa weeye waxa lagu ogaaday wadanka kan bisadaha iyo eyda waxa ku jira chip ama badhan maxaan ku radaa korontaha ayaa ku jira oo ay ku qoran yihiin magaceeda taariikhda nololeedkeeda oo dhan caafimaadkii ay qaadatay dhakhaatiir talaalada ay qaadatay iyo magaca qofka iskale iyo adresskiisa iyo telefonkiisa marka bisadaha iyo eeyada wadanka kan joogo dhan dhaqanka waxa jira waa inaad diiwaan gelisaa diiwaan gelintaas ayaa waxa la gelinayaa badhan baa la gelinayaa oo chip ah oo macluumaadkaas oo dhan ku jiro scan bay marinayaan markii isbitaalka la geeyo scan marinayaan maxaa bisadii marka maxaa ku dhacay bisadii sidaan marka dambe ogaanay naag dariskayaga oo naga dheereen bisadu waad ogtahay oo way iska baxaan wuxuu leeyahay albaab asaga u gaaraho oo badhankaas korontada oo ka furo uu kuna soo galo oo furo oo kaleeto ah oo kuna baxo kuna soo galo marka habeenkii wuu baxay markuu casheeyay buu baxay wuu baxaa wuu soo noqdaa adigu waa bisado marna way baxaysaa marna way soo noqonaysaa naag baa ku dhacday gaari baa ku dhacay booliisku siday wax u dhaceen nooma aysan sheeginin laakiin reer kale oo dariskayaga oo Soomaaliya waxay noo sheegeen inay la soo istaageen markii shil ku dhacay naagtuna waxay tiri bisada iyadoo ordaysa bay maxaan ku soo hoos gashay wasaas ku dhimatay way dhimatay magaceeda marka magaceeda Mayla la gabadhan dhalay baa bisada iska lahayd oo Mayla u bixisay laakiin arinta cajaa'ib kale waxay ahayd isbitaalka markuu nala soo xiriiray ayuu wuxuu ahaan ku nirday bisada haday dhimatay wuxuu yiri ma imaanaysaano waxaa la rabaa inaad bisadii inay tahay in kale tiini inay tahay in kaleeto inaad la kala ogaado waxaanu ku nirday hadii aad ka akhrideen ba macluumaadkeedii chipka waa iyadii iska tuuro meelaha waqtiga la geeyay markaas sheekada weynu bilaabatay haye maxaa dhacay markaas waxaana la yiri ma arrintaas ma aha sideedaba wax weeyaan wadanka kan intaan ku noolaa muddo dheer isma lahayn waxyaabo ka qarsoon baa jira war ma iska tuur ma jiree waxaana la yiri iska tuur ma jiree bisada waana noo timaadin waxa waa la duugayaa la iskama tuuro xoolaha baqtiya halka kan marka habkii loo duugi lahaa iyo noocyada kala gedisan oo loo duugo baan kala hadii kale anaga duugayno lacagna aan soo dalacayna marka bisadii aas baa loo sameeyay bisadii waxayna dhahan saddex waxa leeyihiin maxaan ku raahdaa saddex baad kala dooran kartaan in qabuuro xooluhu leeyihiin aan ku duugno oo ilaa 200 giniyo 500 ka bilaabanay ka sii kor haye iyo in la gubo oo lacagadu 200 meelahaas ku kacayso 200 pound waana la gubayaa iyo tan saddexaad oo sharcigu idin ogol yahay waxa inta midna aan yeelay ana waxaan ku yiri xoolaha iyo dadka midna inaan gubno anagu noloma ogola tan maxaan ku iraahdaa 200 geena ma ahan arinaan ma taqaanaa aan ka bixi karnaa maxaan ku iraahdaa waa gartay aada marka saddex option baa la siiyay saddex qorshe ayaa la siiyay saddexdii bal noo sharax si kooban iyo wixii aad ugu dambeyn go'aan ka qaadateen farxan saddexda qodob saddexda fursadooda kala siiyay waxay ahaayeen oo la yoodin banaan yihiin in qabuuraha xayawaanka lagu xabaalo in la gubo oo labaduba kharash ma taqaanaa ku kacaya
qofka iska labisaduna uu bixinayo oo anaga iyo tan saddexaad oo ay dhaheen haddaad inta midna yeelaynin dabcan tan gubitaanka lama ogola diiniin lama ogola waxay ahayd in haddaad leedihiin dhul gurigiinu hadduu leeyahay jardiino ama beer inaad ku xabaalatiin taasaanu mataqaana qaadanay laakiin dhibtu waxay ka timid carruurtii baa diiday tiina waxay tiri ma doonayna in meeshana loo ku xabaalo waa ka naxaynaayo markaas waxay ugu qaadatay asbuuc dhan in bisadii ay qaboojiyaha meydka la geliyo igu jirto oo intaan carruurtii mataqaanaa bal aan sasabayay oo ay mataqaanaa iska bedelayeen aan maxaan ku idhaahdaa asbuuc dhan ugu qaadatay ugu dambeyntii carruurtii markii aan ka dhaadhiciyo aan ku iri xayawaan ma gubayno lacag intaan leegna inaan ku bixino bisada duugaya lacagta marka midna waa 500 iyo midna 500 bay ka bilaabanaysaa midda xayawaanku waxay qabuuro gaar ah u duugo waxay ku leeyihiin xataa waxa lagu xirayaa madaxii dhagaxii magacay wixii lagu xirayaa oo lacag badan midda kalena tan kale waa 200 oo geniyo waa la gubayaa dambas baa laga dhigaya taa laftigeeda waxay ku leeyihiin dadkan moogtahay galada waa nooc laba qaybeed oo mid xayawaan badan baa la isla gubayaa midna kaligeed baa lagu gubayaa hadaad rabto in kaligeed lagu gubo oo lacag zaid ku daraysaa marka intaa markaanu samaynay waxaan soo gatay qalabkii wax lagu qodayey godkii baan u qoday waan xabaalay marka waxaa la yaab leh laba nin baa wuxuu yidhi laba kala bay saareen laba tago isma saarin bisad baad qabuur u qodaysaayo weligay iguma soo dhicin waad xabaali doontaa waa arrimaha mataqaana la yaab kale farxaan waxa taa kale oo ka darnay subaxii markii habeenkii naloo sheegay in bisadii ay dhimatay oo naliyo subaxii waa inaad timaadeen isbitaalka ayaan shaqadii baan habeenkii axadda weyna sabti isniinta shaqaa layga rabaa mayd baana yaala horey baan waxaan u ogaa qolyaan isla shaqayno eeya lahaayo cadaanaho eygu maruu ka dhintay fasax mataqaanaa la siiyey loo tacsiyeeyo marka balaashar bay ma iga haysanin culays waan dareemayay markaan la hadlayo waa la ii tacsiyey waxaa la waanu ka xunahay in bisadii kaa dhimatay oo dee mataqaanaa tacsi aad ku jirtay marka tacsidaas aad soo gudatid oo ay mataqaanaa dareenkaaga iyo soo dego markaa shaqadaada ima mataqaanaa baab lagu tacsiyey halkan waxaan u jeedaa kaarar badan oo hadda midkan aan gacanta ku hayo ay kuu soo qoreen dad badan oo tacsi ay kugu soo qoreen hadda kaarkan oo kale waxaa leeyahay Miss Cabdi waxaad naga aqbashaa tacsidii af Ingiriis bay ku qoran tahay Mayla mukulaash baa lagaga tacsiyeynaya waxaa kaloo jira iyaguna tagsiyada qaarkood hadda kaarka kanu xaaskayga ku socotay runtii oo waxaa u soo diray qolyihii markii hore meeshaan bisada ka soo qaadanay maxaan ku idhaahdaa markaan inaad u sheegtaayo inay bisadii dhimatay oo ay faylka ka saaraan waxa u geliyaan marka qoladii baa kaarkaa soo dirtay laakiin dad kaleeto asxaaba ama wada shaqayno ama kuwa deriska xataa ajaanibahoo mataqaanaa afrikaan iyo cadaan gurigayba noogu yimaadeen booqasho oo tacsiyen bay noogu yimaadeen marka labadaas arrintaas waxay ku tusaysaa ma ahan oo keliya dadkan oo dhanu inay bisadii ka walwalsan yihiin waa dareen bini'aadnimo ay ku tusayaan adiga sayid yani waxaad ka wadaa waxaa laga baran karo arrintan waxaa laga baran karaa waa mid horta intaas waxaa naloo marinaya xuquuqda xayawaanka ilaalinteeda waxaa jira sharci waddankan ka jira oo haddii gaari adoo wata aad ey ku dhacdid aad dishid ama u dhaawac noqdo waa inaadan meesha ka dhaqaaqanin ilaa uu booliiska aad u yeersido u yimaado bisaduhu kuma jiraan meeshii aanu meydka ka soo qaadnay bisada baktigeeda ka soo qaadnay warqadeena si ay leeyihiin fadlan waxaan ugu jirnaa dadaal in sharciga bisadahana sharciga lagu dabaqee saxiixa waraaqaha saxiixoo noo soo celiyo dacwadda nala gala marka waxay ku tusaysaa horta xayawaanka loo naxariisto iyo qofka maxaan ku idhahdaa dadka asagana dadka noo tacsiyenaya inta badan waxay iyagu u yeelayaan bini'aadminimo oo mataqaanaa adiga ay ku naxariisanayaan marka diintuna way qoraysaa way sheegaysaa in xayawaankana la tixgeliyo marka waa arrin cashar bay ku ahayd Soomaaliya dad joogi leh xaalka sida ma aha cashar weyn bay ahayd may waa laga yaabaa dadka dhageysanaya inay qaar la yaaban yihiin laakiin waxa dhaca weeye marka cimrigaaga oo raaga geel dhalayana waa ku tusaa marka waa tii oo kale farxaano mukulaal aas loo sameeyay laakiin dadka halkan jooga oo ama Yurub jooga ama Mareykanka Ingiriiska joogana waa inay ka bartaan oo waxa u sugaysi ay ku talagalaan iyaguna aad iyo aad u mahadsan tahay aadan warsame buriyar